kulan wacan saaxiibayaal waxaan raaligelin ka bixinaynaa ku dhawaad muddo bil ah oo aanan soo gudbin wax muuqaal ah shaqooyin iyo hawlo gaar ah oo aan ku yara mashquulsanaa aawadood kadib waqtigaasi waxaa sidoo kale waqti badan igu qaadatay soo xulidda barnaamijyo taxane noqon kara oo aynu kaga hadlayno sidee ayay u soo kabteen dalal Soomaaliya xaaladeeda dhaqaale amni siyaasadeed iyo nololeedba hoos ka xigay amase laba sinna waxaynu eegi doonaa sida ay yeeleen siyaasiyiin iyo shacab isku tashaday si ay hormuud ugu noqdaan soo kabashada dalkooda iyagoo ku dhaqmaya ha ahaadaan islaam ama cid kale ayadda quraanka ah ee leh inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim oo la micno ah ilaahay qoom wax kama bedelo ilaa ay iyagu la yimaadaan isbeddelka Soomaaliya dhibta ka jirta ma ahan mid samada ka soo guurtay ama se dhulka inooga soo dustay balse waa dhibaatooyin iyo dunuub aynu ka sameynay gacmaheena taas oo maxsuulkeedu aynu gurubsanayno hadda in wax la dhisaa waxa ay qaadataa waqti badan waxayna u baahataa dadaal dheeri ah aqoon tixraacid iyo ka run sheegid in wax la duunshaana Soomaali cid uga warrami mayso yeynaan ku dheeraan ararta waxa aynu ka hadlaynaa maanta dal dhul ahaan 10 jibaar ka yar Soomaaliya dad ahaan inaga tabarliita diin ahaan aynu ka saxanahay istiraatiijiyad ahaan dalkeenu uu ka wanaagsan yahay khayraad la isbarbar dhiga xaqooda ma jiro oo Soomaaliya ciideeda oo qura ayaa ka qanisan dhammaan waxa dul saaran dhulka dalkaas waa Singapore oo ah dal iyo dad cidlo looga tagay dunida badankeedu waxa ay doontaa in la siiyo xornimada si ay gooni isugu tagto balse iyada waaba la nacay oo waxa iska jaray midowgii Malaysia soo gudbinta barnaamijkan waxa fududeeyay Artisma Graphics waa channel aad ka heli karto casharo ku saabsan graphic designska animationka video editingka iyo adeegyada la xiriira fadlan ku taageer subscribe linkiga channelka waxaan idin dhignay qaybta descriptionka sidoo kale haddii aad ku cusub tahay channelka Audio Som fadlan subscribe like iyo share dhiirigelin ayay u tahay juqraafi ahaan halkee ayay ku taal Singapore waa dal yar oo juqraafi ahaan ku yaal koonfur bari qaaradda Aasiya masaaxadiisu ay tahay 687 kilomitir oo square ah oo dhul qalalan ah iyo 10 kilomitir oo square ah oo biyo ah waxa uu ku jira kaalinta 196 ee dalalka dunida ugu dhulka ballaaran taasi oo masaaxadiisu guud ahaan ay tahay 697 kilomitir square shacabka tira ahaan ku nool Singapore sida aan ka soo xigtay tira koobyadii 2012 waa 5,353,494 qof dhul ahaan waxa halkii kilomitir oo square ah ay dawladdu u qoondeysay inay degaan ama ay ku noolaadaan 7,793,000 oo qof caasimada dalkan ayaa Singapore oo ay ku nool yihiin in ka badan 3,547,809 qof taariikhda dalkan Singapore waxa ay soo martay xaalado gumaysi oo aad u tiro badan dhulka ay ku taalo oo istiraatiijiyad ahaan muhiim u ah isku xirka ganacsiyada dunida ugu balballaaran sida galbeedka iyo bariga Hindiya iyo China sidoo kale Singapore ayaa waxa ay leedahay istiraatiijiyad wanaagsan oo ah dhoofinta alaabaadka ku gudba badaha qarniyadii 16aad ilaa 17aad waxa Singapore gumaystay boqortooyooyinkii Boortaqiiska ahaa iyo kuwii Holland kuwaasi oo aad ugu loolamay gacan ku haynta jasiiradan ballaaran bilowgii qarnigii 18aad gaar ahaan sanadku markuu ahaa 1819 waxa Singapore qaab awood ah gacanta ugu dhigay ninkii lagu magacaabi jiray Thomas Tampo oo markii ugu horeysay ka sameeyay Singapore dekad ay wax ka dhoofaan waxna ka soo degaan taasi oo ka mid yeeshay dhulkan inuu ka mid noqdo dalalka uu gumaysanayay Ingiriiska kuwoodii ku dhaqaalaha iyo istiraatiijiyadda fiicnaa taas oo u lahayd qiimo aad u weyn mandiqada koonfur bari Aasiya hadday ahaan lahayd dhanka ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa militariga waqti aan badnayn kadib waayadaas waxa aad u siyaaday ahmiyadda istiraatiijiyadeed ee uu leeyahay dalkan dhamaadkii qarnigii 19aad iyo bilowgii 20aad waxa jasiiradan u soo hijrooday dadkii ugu badnaa abid waxaana laga dhoofin jiray birta iyo rabadhka laga keeno wadamada bariga iyaga oo loo dhoofiyo dhankaas galbeedka intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee dunida sanadii 1942 waxa qabsaday Singapore Japan laakiin dib ayuu Ingiriisku la wareegay gumaysiga uu ku hayay dadka iyo dhulka Singapore sanadii 1945 Singapore waxa ay ka heshay gacanta Ingiriiska xornimadeedii 1959 iyadoo ku biirtay 1963 midowgii Malaysia balse 2 sano uun kadib
midowga Malaysia ayaa iska saaray Singapore waxayna noqotay jamhuuriyad iskeed u madax bannaan oo uu qaab dastuuri ah ra'iisul wasaare uga noqday 1953 Lee Kuan Yew. halkee ayay tahay in loo jeehayo siyaasad dal ay buux dhaafisay kaneeco biyo fariisin kasta oo leh wasakhowga ugu badan, koronto la'aan, dal aan lahayn kheyraad dabiici ah, dal leh dad aan isku dhaqan, isku diin, isku taariikh, isku luuqad iyo wax kale oo mideeya aanay jirin, biyo nadiif ah oo yartahay sida loo helo iyo xitaa dhul aan ku filnayn dadka ku nool. waa dhibaatooyin ilin u horseeday Lee Kuan Yew, balse baahida ayaa sida la og yahay ah hooyada wax soo saarka. bilowgii nolosha boqoran ee Singapore, Lee Kuan Yew waxa uu qaabilay dhibaatada isagoo iyo koox ka mid ah kuwa ugu khibradda iyo aqoonta wanaagsan xukuumaddiisii. waxa ay qorsheeyeen sidii loo samayn lahaa dib u kabashada dalka iyadoo oo laga faa'iideysanayo maalgelinta shisheeyaha, baridda aqoon dadka reer Singapore qaab walba oo wax loo bari karo, iyo ka jeedinta dadka arrimaha siyaasadda la xiriira gabi ahaanba, sababtoo ah waqtigan waxay u qoonteeyeen inuu yahay waqtiga shaqada oo keliya. waxay awood u yeelatay Singapore waqti kooban kadib inay ka mid noqoto dalalka wax soo saarka warshadaha ah leh, samaynta doomaha iyo farsamaynta alaabaha biraha ka samaysan, petrokimikooyinka iyo qalabka danabka ku shaqeeya, waxna maalgashi ku sameeyay shirkadaha ugu waaweyn dunida sida Shell iyo kuwa kale. bartamihii 90-meeyadii waxa ay noqotay dalka saddexaad ee ugu weyn ee loo dhoofiyo naaftada iyo dalka saddexaad ee ugu badan kala gadashada naaftada kadib New York iyo London, waxaana kaalinta ugu horeysa ay ka gashay dalalka soo saarka petrokimikooyinka, waxayna noqotay dekadda Singapore tan ugu mashquulka badan dunida. dadka reer Singapore badankoodu waxa ay noqdeen dad aqoon leh, waxaana ay ku wada hadlaan luqadda Ingiriiska oo noqotay luqadda koowaad ee dalka. iyadoo oo Singapore ay ku guuleysatay ganacsiga iyo arrimaha dhaqaalaha la xiriira, waxaa sidoo kale xal loo helay dhibaatadii ahayd guryo la'aanta iyo dhul yarida dalka ka jirtay. waxaa la sameeyay dhul gaar ah oo loogu talagalay deegaanka, waxaa sidoo kale la sameeyay guryo fuqi ah oo dadka deegaanka u ah la gaarsiinayo adeegyo dheeri ah. sidaa aawadeed waxa ay hanteen in ka badan 85% dadkeedu guryo ay gaar u leeyihiin. waxaa hoos u dhacday shaqo la'aanta ilaa ay ka gaartay 3% sanadii 1980, waxaana kor u kacay wax soo saarka guud ee dalka isagoo ka tagay 7 bilyan sanadii 1960 ilaa 360 bilyan oo dollar sanadkii markuu ahaa 2016. sidoo kale waxaa isna kor u kacay dakhliga shakhsiga oo ka tagay $435 bishii ilaa 80,000 oo dollar isla sanadahaasi. sidoo kale shakhsiga wata baasaboorka Singapore waxa uu kaalinta koowaad kula jira kan Jarmalka oo ah baasaboorada ugu awoodda badan dunida idilkeed. xog la sameeyay sanadii 2017. Singapore waa dal aad u yar ilaa xad marka laga hadlayo Soomaaliya gudaheeda waxaa la heli karaa dhul u baahan waxdiga iyo goobo nimcada iyo kheyraadka ku jira ay ku filan yihiin adduunka oo dhan, kana yeeli karta dadka Soomaaliyeed kuwa ugu qaniisan ama ugu hantida badan dadka dunida saaran. haddaba Soomaaliya ma heli kartaa koox maamul ah oo sida Lee Kuan Yew ka soo kaxeeya halka ay joogto una dhaqaajiya jihada guusha, nabadda iyo dhaqaalaha ay ka jirto? fadlan ugu dhiirigeli subscribe iyo share, deena ka hel channelkeena taariikho dad nolosha guula ka gaaray iyo warbixino xiiso leh.